نamba mayne insha Allah kala maarmi mayne insha Allah kala maqnaanba mayne Soomaaliya oo maamul federaal ah uu ka hana qaaday in ka yar 10 sano ayaa waxa uu jahwareer badan ka dhashay qaabka ay iskula jaan qaadi karaan madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka oo marar badan isku khilaafay awoodaha iyo go'aamada siyaasadeed marka qof uu maqlo magaca madaxweyne waxa maankiisa ku soo dhaca hogaamiyaha dal ama jamhuuriyad balse Soomaaliya waxa madaxda maamulada loogu yeeraa isla magaca madaxweyne taa oo keentay jahwareer badan iyo isgarabyac ka dhashay hoggaanka dalka maadaama maamul kasta uu leeyahay hogaamiyaal loogu yeero madaxweynayaal sida uu dhigayo dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa B waxa lagu qoray dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah arintan oo ay dad badan saluugsan yihiin balse dastuurka kuma xusna waxa loogu yeerayo qofka hogaamiye ka noqda maamul goboleed sida ay qabaan falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda iyo dastuurka eray bixinta markii la qorayay dastuurka ay ahayd in la kala leexiyo waxa loogu yeerayo labadani maamul Abukaata Sakariya Yuusuf oo ka mid ah aqoon-yahanada aragtidooda ka dhiibtay qorista dastuurka Soomaaliya iyo qodobkeenan maanta ayaa sheegay in hanaankii ugu horeeyay ee lagu heshiiyay xilligii shirka uu aasaas u yahay isqabqabsiga waxa hanaanka la diyaariyay xilli hogaamiye kooxeedyadii ay kala shakisanaayeen mana aysan dooneen in madaxweynaha uu awood badan yeesho ayuu yiri abukaatuhu arinkan ayuu sidoo kale Abukaata Sakariya ku sheegay in waxyaabaha ilaa imika aanan laga heshin ay ka mid tahay nooca dastuur ee uu dalka yeelanayo sida heshiiskaasi u qoran waxa dhismaha federaalka Soomaaliya loo qaybiyay 4 qaybood oo ay ka mid yihiin dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyo inta uu jiro kala shakiga qabaa'ilada iyo hogaamiyaasha u dhaxeeyo iyo sidoo kale cabsida la kala qabo way adag tahay in la dhiso dawlad adag ayuu sidoo kale ku dooday Abukaata falanqeeya siyaasadda Soomaaliya haddaba madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wajahayo caqabada ay la kulmeen madaxdii isaga ka horeysay oo ah sida awoodda ay ula qaybsanayaan madaxda kale ee maamul goboleedka waxaa jira wadamo ku dhisan hab federaal ah sida Mareykan iyo Nigeria dalalka ugu dhow Soomaaliya ee xuduudda la leh sida Itoobiya iyo Kenya waxay ku dhisan yihiin hanaan federaal ah balse waxa kala duwan sida loogu yeerayo iyo awoodda mid walba uu leeyahay oo dastuurkooda ku cad madaxda maamulada Itoobiya waxay awood u leeyihiin maamulka arrimaha deegaanadooda balse dawladda federaalka ayaa go'aan ka gaarta kheyraadka difaaca maaliyadda iyo arrimo kale taa oo ka duwan Soomaaliya oo marka dawladda federaalka ay damacdo inay talaabo qaado ay ku qasban tahay inay qanciso lana tashato maamulada kale Kenya ayaa sida oo kale maamulada aysan u madax banaaneen laamaha amniga sida booliska iyo militariga salamida madaxda gobolada waxa loogu yeeraa gobernatore loomana ogola in madaxweyne lagu magacaabo ama ay soo fargeliyaan hawlaha dawladda dhexe ee Kenya ayaa sidoo kale arrimaha u gaarka ah wax wada tashiya aanan kala yeelanin maamul goboleedyadeeda waxaana la mid ah oo hanaankaasi isticmaala dalalka Nigeria iyo Mareykan hase yeeshee Soomaaliya waxay u muuqataa inay ka duwan tahay dalalkaasi jahwareer badanna ay ka dhaxashay gooni istaageeda dawladda kaligeed go'aan ma kaari karto waana in ay la tashi la yeelato maamulada taana waxa sabab u ah dastuurka ayuu qabaa Cabdi Faarax oo qaybka falanqeeyaasha sare ee barnaamijkan ka soo muuqday iyadoo la kala baqayo ayaa dastuurka la sameeyay marka waxa laga dhigay mid nugul oo wax aan lagu wada tashan uusan sameyn karin madaxweynaha ayuuna ugu dambeyn ku dooday isaguna qaybtiisa Faarax Yacquub Siyaad oo ku sugan Mareykan falanqeeyo siyaasadeedna ah haddaba maxay kula tahay inay ka qaldan tahay Soomaaliya mar haddaysan jirin duni kale ama wadan kale oo madaxweynayaal badan leh ma aaminsan tahay in tani ay qayb ka tahay hanaanka ay dawlad la'aanta uga jirto dalkeenan ama loo heli laayahay dawlad sinaan iyo cadaalad ka shaqeysa insha Allah kala maarmi mayne insha Allah